xilli maalmaha soo socda lagu wado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug in ay yimaadaan mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, wasiiro xildhibaano ka kala socda baarlamaanada Galmudug iyo sidoo kale federaalka madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale ayaa waxa si weyn loo adkeeyay ammaanka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Ciidamo si gaar ah loo qorsheeyay inay sugaan ammaanka baaritaan xooggan ay ka sameeyaan wadooyinka ayaa howlahooda durbadiiba bilaabay, waxaana laga dareemayaa wadooyinka oo ciidamadu ay howlgallo ka wadaan iyadoo la arkayo gawaarida oo taagan ayna baaritaano ku sameynayaan. Sidoo kale baaritaanka ayaan ku ekaan oo kaliya gaadiidka, waxaa mararka qaar ku soo dhacaya goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta naftirkooda qabanqaaminaya munaasabadan oo aad ku arkayso iyadoo si shacabka la mid ah loogu baarayo goobaha shacabka lagu baarayo. uqaabilsanaha dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiiska ay dhawaan gaareen maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna ee ku midoobay Galmudug, Cabdisamad Macalin Maxamuud ayaa shir jiraad ku qabtay xarunta gobolka, waxaana uu faahfaahin guud ka bixiyay halka ay wax u marayaan, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in si guul ah ay ku dhacaan munaasabadaha dhawaan lagu wado inay ka dhacaan caasimadda Galmudug. inay imaan doonaan wafdi ballaaran oo ka socda ayagu si toos usoo gudbi doona oo usoo imaan doona magaalada Dhuusamareeb oo ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, oo ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynadiisa iyo xildhibaano magaalada maalmaha dambe waxaa aad loo adkeeyay ammaankeeda, waxaana ku soo qoolle fufuud aad u fara badan oo runtii qaybo kala duwan magaalada waxay ku jirtay maalmaha dhan loo diyaargaroobay sidii loo soo dhaweyn lahaa wufuuddaas. looma kala harinin shacab hadday noqoto maamul hadday noqoto mas-uuliyiin hadday noqoto looma kala harinin. aniga shakhsi ahaan mas-uuliyaddeedu waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxay ii wakiilatay inaan heshiiskii la heshiiyey ee lagu heshiiyey meesha la yidhaahdo bila Soomaaliya dhammaystirkiisa inaan dhammaystiro. laakiin haddeertaan waxa sidaad usunta arkaysaanba waxaa lagu jiraa qabanqaabadii diyaarintii dad aad u fara badan ayaa maxaa la yidhaahdaa imaanaya deegaanka imaanaya oo nooc walba isugu jira, mas-uuliyiin dowladda isugu jira, ganacsato, culamaa udiin, odayaal dhaqan, haween, dhalinyaro intuba waa imaanayaan. intoo kaletana waa joogaan oo runtii maxaa la yidhaahdaa u istaagay oo habeen maalin taagan inay dhammaystiraan dadkaas siday u martigelin lahaayeen, amniga sugaayeen. isku dhac yar waa jiray, laakiin gudoomiyaha xaliimyari lama xirinin. maxaa la yidhaahdaa ilaa iyo markii buuqa bilowday ilaa intuu dhammaadayna waa isla soconay. gudoomiyaha xaliimyari waxa weeye runtii qof muhiim u ah deegaankan u ah, waqti badanna gelisay. maxaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jiray inay isku dhaceen ciidamadii controolka joogay magaalada laga soo galo, waxaa ogsoontiin ay isku dhaceen iyo maxaa la dhahaa ciidankii darawaliinta ayada la socday qaar ka mid ah. waxaad ogsoontihiin gudoomiyaha xaliimyari waxay ka soo degtay magaalada Gurceel, si wanaagsan baa loogu soo dhaweeyey. maxaa la yidhaahdaa laba maalmood meelahaasay joogeen ayada iyo dadkii la socday. kabacdina waxay soo gudbeen magaalada Dhuusamareeb. iskamay imaanin, waa la ogaa markay imaanayeen, balse maxaa la yidhaahdaa maadaama ciidamadu ay la siiyey full access inay baaritaan badan sameeyaan, wax yaroo isku dhaca yimid. magaalada ayaa waxaa ka soconaya diyaar garow dhinaca kale oo la arkaya dhismayaal xooggan oo ka soconaya iyo sidoo kale ciidamada Baanbayda oo gaada kacyaar ku sameynaya gudaha magaalada. bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka deegaanka ka arrimaya ayaa si isku mid ah ugu taagan sidii bulshada dhawaan la rajeynayay inay deegaanka yimaadaan loo soo dhaweyn lahaa. Cabdi Jamaal Macalin Axmed, Kalsan TV, Dhuusamareeb.